بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu wax ka tilmaami doonaa asbaabta keenta al-amn wal-istiqraar, nabadgelyada iyo xasiloonida. nabadgelyada iyo xasiloonidu waxay ka mid yihiin nolosha waxyaabaha ugu qiimaha badan leh. walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in dhowr iyo 10 meelood ka badan dadka ama saalixiinta ama awliyadiisa ama aakhira u abaal marinayo laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay ku sifaynaya badan. laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, kuwa cabsanaya ma aha oo cabsiyo korkooda ma ahaanin, mana tiiraanyoonayaan. cabsida iyo tiiraanyadu nolosha cidhiidhi bay geliyaan, waana dhib bini aadamka ku dhaca, waana waxyaabaha maqaasid shariica ay culammadu yidhaahdaan ay u yimaadeen oo dhan, in qofku nabad u helo diintiisa, caqligiisa, naftiisa, maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa, iyo maqaasid shariica alkhamsa aw sita ay culammadu tilmaamaan oo ah danta diintaba loo soo rogay. 5 shay ama 6 shay inay diintu ilaaliso. sida awgeed waxaynu ku tilmaamaynaa inay tahay waxyaabaha noloshu aanay marnaba ka maarmin. adduunkan aynu joogno xadaaradiisa iyo horumarkiisa ay sheegaanna waxay dhahdaan sullam alxadaara, salaanka loo fuulo bay dhahdaan xadaarida iyo horumarku waa al-amn wal-istiqraar siyaasi bay iyagu ku tilmaamaan. waa nabadgeliyo iyo deganaanshiyo siyaasadeed bay dhahdaan. dib u dhaca iyo takhallufka iyo jabkuna wuxuu ka yimaadaa bay dhahdaan al-idiraabaat wal-khawf, dadka oo cabsi ku beeranto ama nidaamkooda siyaasigoo degi waaya iyo wixii la halmaalaa waxay bini aadamka ku keenaan dib u socodnimo. haddaba ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yaa bani aadama ima yaأtiyannakum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaati faman itaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. reer bani aadamow baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala, haddii xaggayga idinka yimaadaan rusushaasoo yaqusuuna calaykum aayaati, idinku dul akhrinayo idinka warramaya aniga aayaadkayga iyo waxyiga alle subxaana wa tacaala. dib kuwaas idin yimaadaan, yacni waxyigu markuu idin yimaado ilaahay diintiisu hadday idin soo gaadho, labadan shay ciddii samaysa baa la yidhi faman ittaqaa wa aslax, ciddii alla ka cabsi laga helo oo wa aslax wax hagaajisa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay leeyay. falaa khawfun calayhim, cabsiyo korkooda ma ahaanin oo ka cabsan maayaan mustaqbalka iyo waxa soo socda, walaa hum yaxzanuun, tiiraanyoonna maayaan oo wixii tegayna ka tiiraanyoon maayaan. waxay dhahdaan bini aadamku nabadgelyada uu u baahan yahay waa 2 qaybood bay dhahdaan. midi waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nabadgelyo daakhiliya, gudaa ah. midna waxaa la yidhahdaa nabadgelyo khaarijiya, dabadda ah.
mid waa nabadgelyo gudaha ah oo waxa lagu tilmaamaa inuu qofka bini aadamka ahi caqiida ahaan xasiloon yahay, cabsi aanu qabin, naf ahaan aanu warwariyo walbahaarhayn, deganaanshiya uu qabo. taasi waa min annafs, gudahay ka timaadaa. midna waa tu dabadeed oo waxa weeyaan cid aad ka cabsanayso oo kugu soo duulaysa ama dhib ku haysato dabad kaaga imanaysa inaanay jirin. labadaa midnaba inaanay jirin. labada tan haddaba asbaab bay ku xidhan yihiin. ta daakhiliga ah ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labadaba isagoo ka warramaya: man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. ninka waa barista aaminan fii sirbi isagoo ku nabad qaba tolkii iyo ehelkii iyo dadkiisii, waddankiisii, ummaddiisii dhex joogoo nabad qaba, aan cidna ka cabsanaynin, caafimaad dabadeed qaba, jidhkiisu caafimaad qabo, amni sixiya yacni haysta, cindahu quutu yawmi, amni ghadaa'iya haysta, nolosha aan warwar kaga jirine wuxuu liqo helaya. kaa dunidu way ku soo ururtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkani nabad buu dareemayaa, cid ka cabsan maayo aan alla ahayn subxaana wa tacaala, naftiisu waa xasiloon tahay, isla markaana waa caafimaad qabaa, waxuu cunana wuu helayaa. kaa adduunyada ku soo ururtay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. haddaba culammadu waxay yidhaahdaan ta gudaha ah si gaaraynu u tilmaamay, ta dabaddaana si gaaraynu u tilmaamnay. ta dabadda ahi waxay yidhahdaan waa bini aadamka macdalaadka ugu waaweyna taariikhda bini aadamka soo marayba. almacdala alijtimaaciya, macdala alijtimaaci siyaasi bay yidhahdaan. dhibta deganaanshiyaha siyaasadeed ee nolosha bini aadamku fii kulli zamaanin wa makaan, taariikhda bini aadamka o dhan marka la daraaseeyey bay yidhahdaan meelaha ugu adag ee bini aadamku gagadoonka tirada badan uu kaga dhacay waa xagga siyaasadda. waayo laba daraf oo labaduba dhib yihiin baa jira, iyo meel dhexe oo nabaddu ku sugan tahay. meesha nabaddu ku sugan tahay waa inay ummaddu cadaalad hesho. ummad kastoo cadaalad heshaa xasiloonay heshaa. ummad kastoo cadaalad heshaa xasilooni bay heshaa. cadaaladda maxaa ka soo horjeeda laba dacal oo labaduba khatar yihiin. waa labada dunida muslimku inta badan ay u kala guuraan, ama kaasay degaan ama kaasay degaan. labadanunbay degaan iyagu. labada dacal midi waxay yidhaahdaan ima alfawda aw itugyaan bay yidhaahdaan. dictatorship iyo cid dadka arsaaqdooda xisaabisa oo nafta isugu keenta inay gacanta ku dhigto oo dadka cidhiidhida oo nabadda ka qaada, ama xagga kale inay u dhacdo oo inta la tuuro fawdo laga dhigo. marna mid quraa dadka nafta isugu keenaya, marna cid waliba cidda kale nafta isugu keenaysa. waa fawda, waa anarchy, waa deganaanshiye la'aan, waa xasilooni la'aan, waa kala dambayn la'aan. waa labada aad moodda caalamulislaami inuu inta badan u kala guuro, oo inuu dhankaa joogo oo dulmi iyo hagardaamo iyo dil iyo xabsi iyo dhac iyo neef ku dhaguud ku jiro, iyo inuu markuu bresharku ka tiro bato shayga haddii la cadaadiya marka dambe maxaa ku dhaca? u qarxaa. in bresharku intuu ka bato culaysku dabeetana bulshadu ay qaraxdo oo dhanka kale ay u kacdo, oo ah fawda inay noqoto, ninna nin xukumin, cid waliba wixii ay soo gaadho boobto oo disho oo dhacdo, iyana waa darafka kale. labadaa dacal waxa u dhaxeeya in istiqraar iyo amni la helo, istiqraar siyaasiya iyo amni in la helo, nabadgelyo in la helo,
xasilooni in la helo deganaanshiyo siyaasadeed in la helo cadaalad in la helaa baanay kuwaasi ku salaysan yihiin labadan daraf midna cadaaladi ma taallo dictatorshipkuna cadaalad ma hayo fawdaduna cadaaladi kama jirto labadaa dhexdooda waxa yaalla keliya ee noloshu ka suurtagaltay waa tan si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka leeyahy faman ittaqaa cidda dhowrsata ee ilaahay ka cabsata kaasi wuxuu helayaa kow alamni daakhili caalamulislaami marka laga yimaadana dadka kale qaybo ka midi waxaa laga yaabaa alamni alkhaariji aw alamni alijtimaaci inay waxun ka hayaan ka degan yihiin ka xasiloon yihiin laakiin iyana waxay leeyihiin alamni daakhili caalamka xaggiisa kalena waxaan ka jirin nabadgelyada nafeed oo ah qofku waxa uu rumaysan yahay dunidaynu maanta joogno iyo isugu dil badan inta dheragtay dunida la leeyahay waa horumartay ayaa ugu dil badan إحصائيات سيداتناتكي maaha hadda waxay tilmaamayeen Yurub afartii qof ee kaste galbeedka degan inuu midi daawad deganaanshiyo ku socdo that means dadku inuu ku badan yahay ana uu ku badan yahay maxaa la dhahaa next alqalaq walidraba warwar walbahaar xasilooni daro yani maskaxdu inaanay deganayn naftiisu inaanay xasiloonayn cabsi inuu qabo oo waa maxay wuxuu laayahay iimaan buu laayahay iimaanka xaqiiqada buu laayahay qofka xaqiiqatul iimaan si dhaba u hela ee nolosha fahma ee xaqay u socoto garta ee aakhira garta ee rabbi garta ee garta ilaah maamula dunida tan inuu jiro kaasi amni nafsiga uu hela warwarkiyo walbahaarku uu ka hadha xasilooni uu hela laakiin haddii cadaaladii kale la waayo isna amnigii khaarijiga buu laayahay isna kii dabadeed ayuu la'yay sida awgeed ilaahay wuxuu leeyahay faman ittaqaa ninka dhowrsada oo wa aslax wax hagaajiya alamni alijtimaaci bulshada hagaajiya kaasi labadaa isku darsadaa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay yidhi falaa khawfun calayhim cabsii korkooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuun murugoonna maayaan qaybta koowaad ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa iimaanku inuu طumaaniina iyo sakiina keeno inuu keeno iimaanku waa qof gartay wuxuu u nooliyey waa qof gartay xagga uu ku socdo waa qof gartay noloshu macnaha ay leedahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwii iimaan dhaba laga helay ee aan iimaankooda ku ladhin ama ku labin ama ku marin dulmi shirki aan dhex gelinin ulaa'ika lahum اlamnu baa ilahay yidhi kuwaasi nabad bay leeyihiin xasilooni bay leeyihiin sakiinay leeyihiin iطmi'naan bay leeyihiin cabsi duniyeed ma hayso wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala aladiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كوا إيمانك لغا هلاي قلبي يدود كو حسلين با إلهي ليهي اللي حسكي يا ذكريس اللي حسكي يا ذكريس كو حسلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب با إلهي ليهي إلهي حسكيسة أيوكو دقا قلبك قفك بنادمك ولذلك dunidaynu maanta ku noolahay dadka iimaankan aan ka waramayna dhabta shariicadu ay la soo degtay waaya intooda ugu badani qalaq bay ku nool yihiin warwar iyo walbahaar dabeetana waxay ka door bidaan inay nolosha waajahaan oo ka fakaraan oo ay ta'ammul laxdatu ta'ammul aw tafakkur waxay ka door bidaan cagsigeeda oo ah inuu maankiisa waalo si aanu u fakerin khamra cab wiigii laba habeen waalow shan maalmoodna sida dameerka u shaqee markaad shaqada ka soo baxda labadaa cashana waalida ku jir oo isilowsii nolosha xashiishad cab darooga cab qudhun cab
haddii kale boodboodo maantao dhan wax cayaaro orod wuxuu diidan yahay qofka kani intuu xasilo inuu nolosha dareemo oo fakero waayo taasaa dhib ku ah gurigan joogistiisaa dhib ku ah deganaanshiyaanu haysanin saa daraaddeed waa inuu isku dayaa jidhkan ama inuu daaliyo suu sariirta ugu duldhaco u sakhraabo ama caqligan inuu wareeriyo si aanu wax u garanin labada miduun waa inuu sameeyaa riyaado tiro badan iyo sport tiro badan iyo waxaan tiro badan oo maantao dhan orod dadkani maxay maantao dhan loo ordayaan ma jidhka qura loo ordayaa maya waxaa la rabaa hadhow inaan la fekerin in la dhico inuu qofku seexda uun wuxuu leeyahay itmiinaankii qalbiga ahaa kaasi waa dhan ilaahay waxaanu tilmaamaya walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow kuwa magaalooyinka degani hadday ilaahay ka cabsan lahaayeen iimaanna laga heli lahaa cirka iyo dhulka barakaadkoodaan u furi lahaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaba su-aashaynu isweydiinayna waxay tahay labadan shay aynu tilmaamayno ama amniga nafsiga ha noqdo ama amniga khaarijiga ha noqdo aynu tilmaamayno mujtamacaadka maanta dunida ku noolay inta badan cid labada isku haysataa way yartay kuwii waxyiguu soo degay ay ahayd inay labadaba helaanna intooda ugu badani waxay helayaan waxa weeyaan inay degan yihiin xasiloon yihiin iimaan ahaan waxyaabihii maalan soomaaliya burburkeedii abaaru marka ka dhacenaya waxaa reer galbeedku qorayeen ay ugu yaabka badnaa agtooda waxaa ka mid ahaa dad baahan oo gaajoonaya oo dhibahaysato oo dowladnimo waayo oo isboobayo haddana faraxsan bay ku leeyihin oo qoslaya waayo waa qariib iyagu ma dareemayaan qofkani waxaan uu dareemayo inuu ilaahay rumaysan yahay inaan adduunku dhibta caynkana ku haynin iyaga waxaa qariib ku ah in la arko qof noocaa noloshiisii tahay ummad noocaa noloshoodu ta aan isdilaynin aan isagu naftiisa goynaynin iska faraxsan nooloo si caadiya u jira laakiin waxaynu weynay tii ahayd inaynu cadaalad ku dhaqanno dabeetana caalam alislaami labada dhinacunbuu socdaa ama qaybna duqaad baa haysata iyo kuwa dhaalimiina oo dadka nafta isugu keenay qaybtii kuwaa ka baxdayna fawday galeen energy dil iyo buuqiyo isdabaroor bay galeen iyan labada kooxoodba waa la-ayeen amnigii khaarijiga ahaa qolada tanina nawcun maa wax cadaalad ka mida way isku dayeen in la helo alcadaala alijtimaaciya dadku furaska intiisa badan nawcun maa u sinaado cadaalatu tawsiicin waxuun ka jiraan waxa hantida waddanka si uun haba la kala badsaday in dadka wax ka wada gaadhaan waxyaabahaasi waxay keenayaan dadku inuu deganaado kursiga in si nabada loo kala qaato aan xoog iyo budh lagu kala qaadan ama boob iyo dhac lagu kala qaadanin ama musuq maasuq iyo annagaa boqolkiiba 99 keena aan lagu kala helin taasi waxay keentay nooc min alistiqraar laakiin iyana waxay waayeen markay la dagaalameen diimihii oo dhan markay ilxaadku ku batay markay diin la-aantu badatay iyana waxay waayeen alamni nafsi khawaar ruuxiya dadka ku dhacay ruuxaan bay u madheen saa daraaddeed baa waxaa ku batay isdilka iyo darooga cabka iyo wixii la mid ah haddaba soo dhowr su-aalood baynu isku dayn inuu ka jawaabno ah waxaan in la helo maxaa muqawamaat u ah kow waxaan leenahay waxa u ah waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala ilahay isagaa ina yidhi bini aadam anaa idin abuuray waxa idiin fiicanna anaa garanaya cid waliba waxay samaysay iyadaa taqaana saa maaha dunidan aynu joogno nin waliba productka uu soo saaro ma cid kale ka badisa mise isagaa waa kambaniga sameeya khabiiro ah oo la yidhaahdaa kambani hebel baa waxaan soo saaray isaga ha la weydiiyo cid waliba productkeeda iyadaa khabiiro ah ilaahay wuxuu leeyahay anaa idin abuuray alaa lahu alkhalqu walamr anaa idin abuuray
waxa u baahantiin iyo qaabka u noolaanaysaan ana idin siinaya kataloga nololeed iyo qaabka u noolaanaysaan ana idin siinaya sida awgeed waxaan leenahay kow nolosha nabadeedu waxay ku xidhan tahay inay dadku caqiido saxiixa helaan waxaa laga yaabaa dadka siyaasiyiinta inay yidhahaan dadkiiba gaajo u baktinaya wadaadaduna ilaahay laga baqo ma ka warramaya ilaahay haddaanu ka baqin si kale uu maranayaa sida awgeed kow inuu qofku naftiisu deganaanshiyo hesho oo uu xasilo oo uu caqligiisa iyo maankiisu caafimaad qabaa waanu cidna boobina aakhiro ka cabsado iyo xisaabina ka dambaysa waxay ku xidhan tahay caqiidadiisa in la toosiyo islaaxu alcaqiida waxay ku xidhan tahay ikhlaasu lcibaadati lilahi subxaanahu wa tacaala ilaahay in loo gaar yeelo cibaadada qofku hadduu dariiqaa raaca akhriya adduunba u badbaadaya ilaahay baana qur-aanka wuxuu ku ballan qaaday wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat labadaas shay ilaahay wuxuu u yaboohay baa rabbi leeyahy kuwii iimaanna laga helay camal suubanna sameeyey labadaas shay dadka laga helo muctaqadkiisuna sax yahay dhaqankiisuna quman yahay labadaa haddii laga hela baa ilaahay leeyahy layastakhlifannahum fi lard dunidan waan dhaxal siinayaa baa ilaahay leeyahy sidii umamkii hore baan u dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintu ilaahay raalli uga yahayna wuu makansiinaya gacantuu u gelinaya walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baa ilaahay yidhi cabsidooda dabadeedna nabad baan siinayaa baa ilaahay leeyahy amni mid nafeed iyo mid adduunyeedba way helayaan shardigu muxuu ku xidhan yahay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya xaalay ku sugan yihiin oo ah inay aniga ay caabudaan cidna aanay ugu shirig yeelin marka waxaan leenahay kow asbaab alamni inaynu politically degno inaynu mujtamac ahaan degno xasilooni inaynu helno naf ahaan degno wax waliba inoo hagaagaan waxay ku xidhanto kow ah in iimaankeenna aynu dhisno caqiidadeennu inay toosto laba waxay ku xidhan tahay baynu leenahay qadiyadda ay culammadu ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar dad samahana isfara inaynu noqonno xumahana iska reeba bulshada aan dhaqankaa yeelan xumuhu wuu ku faafaa oo way duntaa markiiba yacni laxda haddaad wanaagsanaato laakiin aan wanaagga cidi ilaalinaynin bulshadu way dumaysaa sida awgeed ayaa waxaa laga rabaa ummadda muslimka ah calaamadda lagu yaqaane saxda ahiba waxay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin dadkii ugu khayr badnaaye ummadda loo soo dira ilaahay saxaabadii nebi maxamed ku leeyahy oo waayo sababtu waa maxay ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billah baa ilaahay yidhi saxaabadii nebi maxamed waxa la leeyahy dadka u khayr badantihiin maxaa ugu khayr badantihiin waxaad tihiin ummad wanaaggana ka shaqaysa xumahana reebta allana rumaysan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaa khayrnimadan laydiin sheegaya ummadda nebi maxamed dadka ka khayr badan tahay adoo daalimo dadka kama khayr badnaanaysid dadka waxaad ka khayr badan tahay markaad yeelato sifadii ilaahay ku tilmaamay ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray laakiin hadday bulshadu boobka iyo dhaca isku taageerto inay isboobto inay isdhacdo inay isdulmido inay cadaaladda ka tagto haddaad isku taageerto waa bulsho nabadgelyo heli maysiduun maantaad dhici adna baraa lagaa dhici maantaad suldaari adna saa dambaa lagu suldaari sida uma u socon nabadgelya dhici mayso markaa ninka ku faraxsan reer hebel baanu kurastoodii boobnay ama waxaan ka qaadnay ama xoolahoodii boobnay ama dhulkoodii boo adna waa laga qaadi taasi isbeddel ma jiro isbeddelku wuxuu ku dhacaa nabaddu ay ku timaadaa inay dadku cadaaladda dareemaan cadaaladda waxay dadku dareemi karaan markay ummadda ku dhex jiraan dad samaha ka talinaya laakiin
dadka hormuudka u ah hadday iyagu noqdaan kuwa dhaalimiinta aan samaha ka talinaysay u guulaysanayaan walow aan mu'miniintiin waa halaagmaysaan ولذلك بو النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن وحينا تري وأصلح مصلحين تهي إن تصالح تهقر لقى مرة إن مصلح تال الربا إن ددو ونكسن تهقر لقى مرة وحل الربا إن دد كانوا ونكنيس النبي عليه الصلاة والسلام إسقو شوغا قري زينب بنت جحش ayuu hurdo ka toosay isagoo fazica markaasuu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyawma min radmi yaajuuja wamaajuuj mithlu haadihi tu nebigu toosay buu wuxuu tawxiidsaday ilaahay baa weyn waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam carab dhib baa ku soo socota buu nebigu yidhi oo yaajuuj iyo maajuuj baa la furay meeshoodii waxaynu uga dan leenahay xadiidkan intiisa dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam zaynab su-aal bay weydiisay odhanaysaa afa nuhliku wa fiina asaalixuun miyaa lanala halaagayaa iyadoo dad saalixiin inugu jiraan dadku isagoo weli dad khayr qaba ay ku jiraan miyaa la halaagayaa buu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas nabigu wuxuu ku yidhi nacam إذا كثر الخبث هاي ولا هلاقيا هدي أي بطان دتك حمي هدي دتك حمي بطان إذا أمضوا كأمة وهلا نوين مركو هوري هدي للرباين نبض لهلو مد نفسية يمد خارجية بين لهلو كوين عقيدة دودو إصلاحنا ويدتكو إيمان صح هلان laba waxaan leenahay waa inuu al-amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar dadka waa in xumaana laga reebaa samahana la faraa hadda waxaad moodaa soomaalidu inay ku badan tahay qawqaa'iyiintu dadka beleda sheega dad wasaa'ilul ijtimaacooda eegto waxaan maanta la iskula xidhiidho waxa ugu badanee ku jira ووحان صح هينا ما ومدى نبدأ ذا كتالينين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحط الماما يا أمضوا تلديدو هداي كحرانتو انت الروي بضضاء النبي عليه الصلاة والسلام وحليي أمضى وقتا كو إيمان دونا سنوات خداعات أي كو إيمان دونا أبو النبي كنت الماما عليه الصلاة والسلام يعني قليلة العطابة ويكون فسر العلماء سنضه waxtarkoodu yaryay oo maxaa sababtu tahay wuxuu nabigu ku tilmaamay in kaadibkana la rumaysan doono saadiqana la beenin doono khaa'inka la qofka khaa'inka amaanada loo dhiiban doono amiinkana la takhwiinin doono arruwaybidana ay umuur ilcaama ka hadli doonto markaasaa nabiga la weydiiyey ruwaybidadu waa maxay ودتك التوافه ده أبو نبي وقتل المامي أمور طعام كأمد إلى ذلك والرمية أيها الأحبة وحكو سوكو بينا مركا هدي للربو نبت قليه دقناشيين وقفقو هلو يبلشدي مجتمعو وين عقيدة دودة للصحاوة كو وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد السماها وإن كتاليان حماهنا الريبان واللبا وإن لهلا إلهي وحن معكو سيئنا تكون مهد نغدد الشكر على النعمة وإن لهلا أسبابتك أنت الاستقرار السياسي وعدالة حرية شورى طاعة وحلمدة وإن لهلا الإعلام الراشد ميديا خير كدتك ويرية حمانك الريبية وحاسي هدا يسبير صدان labadii nabadgelyo aynu sheegaynaba waa la heli karaa inta aan labadaa lahaynna waxaas aan lahaynna labada midun baa la waayi doonaa dadka badhna waxay ku dadaaleen amniga khaarijiga inay helaan sida dhulalkan aynu joogno laakiin kii daakhiliga habay la'yiin dadka badhna waxay ku dadaaleen amniga daakhiliga inay helaan oo iimaankooda iyo xasiloonadooda iyo warwar la'aantooda laakiin waxay waayeen kii khaarijiga ahaa
sharciguna wuxuu inoo tilmaamayaa labada haddaynu isku qaadanno inaynu labada nabadgelyaba helayno sala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin